وحلا وحي أنا فرقيني يوحي أي تلنا سوتشيدين يوحي أي دنت كرك وأركيين وأنا يسلك عادني waxay ku soo gunaanadantay is-afgarad dhammaantood isagoo mid la isku khilaafsanayn kulankii maanta u dhaxeeyay mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland iyo madax dhaqameedka gobolada Awdal iyo Salal ayaa wuxuu ahaa mid ay albaabadu u xidhnaayeen waxaana warbaahinta si wada jir ula hadlay Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Abdullah Sandere kuwaasi oo bixiyay war-saxaafadeed ay ku soo gaabiyeen in heshiis la isku afkartay balse baaritaan iyo xog raadin ay samaysay warbaahinta Awdal Media waxay dabagal dheeraad ah ku samaysay kulankan iyo qodobadii laga hadlay dhinaca dhaqanka guud ahaan gobolka Awdal intii uu kulankani socday waxa ka hadlay 5 suldaan oo kala ah Suldaan Maxamed Suldaan Saleebaan Cali Ismaaciil Suldaan Samatar Suldaan Ibrahim Jaamac Samatar Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal Suldaan Xasan Xadibaade iyo Suldaan Abshir Maxamed Ducaale salaadiintan oo hadalka iskaga kala dambeeyay ayaa waxay xukuumadda hordhigeen 4 qodob oo ah 1 dheelitirka gobolka Salal in la saxo in la joojiyo buuga in nabadgelyada laga shaqeeyo oo ay dawladdu gacan adag ku qabato sugtana amniga iyo 4 in mas'uul dhexdhexaad ah loo soo magacaabo gobolka Salal oo bulshada isku haya dhinaca xukuumadda waxa uu hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland waxaana uu sheegay in dhinacooga ay qaateen soo jeedinta dhaqanka waxaana uu sheegay in uu gaarsiin doono xukuumadda wixii ka soo kordhana ay dib u wadaagi doonaan Axmed Ciidre wararka warbaahinta Awdal Media Group Boorama